Sheekada 26aad Bilowgii wacdiga Ciise Masiix. Markuu Ciise ka adkaaday shaydaankii rabay inuu duufsado, Ciise wuxuu ku soo laabtay dhulkii Galiili iyada oo Ruuxda Quduuska ay hagayso. Halkaasna waa meeshii uu ku noolaa. Ciise wuxuu tagayay meelba ka meel si uu dadka wax u baro, qof kastana wax fiican ayuu ka sheegayay isaga. Ciise wuxuu tagay magaalada Naasaret oo ahayd meeshii uu ku soo barbaaray. Maalin Sabti ah, Ciise wuxuu tagay meel Yahuudda ku caabudo Ilaah, waxaana loo dhiibay kitaabkii Nebi Ishaaya si uu u akhriyo. Ciise wuu furay wuxuuna akhriyay qayb ka mid ahayd kitaabka. Ruuxii Rabbiga ayaa i dul jooga, waayo wuxuu ii subkay inaan war wanaagsan masaakiinta ku wacdiyo. Wuxuuna ii soo diray inaan kuwa xiran furinnimada ogeysiiyo, iyo kuwa indhaha la' soo celinta araggooda, iyo inaan kuwa nabaraysan soo furfuro, iyo inaan dadka ogeysiiyo sannadda qaabilaadda ah ee Rabbiga. Kadib Ciise wuu fariistay, qof kastana si fiiro gaar ah ayay u fiiriyeen isaga. Waxay ogaayeen in aayadahan uu Ciise akhriyay ay ka hadlayso Masiixa. Ciise ayaa ku yidhi, aayadaha aan akhriyay way rumowday oo hadda ayay socotaa. Dadkii oo dhan way fajaceen waxayna yidhaahdeen, miyaanu kan ahayn wiilkii Yuusuf? Kadib Ciise ayaa ku yidhi, waa run in aan nebina laga aqbalaynin magaalada uu ku dhashay. Markuu nebi Eliya noolaa, waxaa jiray carmalooyin fara badan oo ku noolaa dalka Israa'iil. Laakiin markuu roob da'i waayey muddo 3 sano iyo bar ah, Ilaahay uma uusan soo dirin Eliya carmalooyinka reer Israa'iil, ee wuxuu u diray carmalad ku nooleed waddan kale. Ciise wuxuu kaloo yidhi, markii nebi Eliisha noolaa, waxaa jiray dad badan oo joogay Israa'iil qabayna xanuunka maqaarka, laakiin nebi Eliisha ma uusan daaweynin iyaga. Wuxuuse daaweeyey Naamaan oo ahaa taliyihii cadowga Israa'iil. Dadka Ciise dhegaysanayay waxay ahaayeen Yahuud, oo markay maqleen waxa Ciise sheegayo, aad ayay uga xanaaqeen. Dadkii Naasaret meeshii ayay Ciise ka soo saareen oo waxay u wateen meel buur ah si ay uga tuuraan. Laakiin Ciise dadkii oo isku xoonsan ayuu dhex maray magaaladii Naasaretna wuu isaga tegay. Kadib Ciise wuxuu maray meelo fara badan, oo dad badan ayaa u yimid isaga. Waxay u keeneen dadkii bukay, indhoolayaashii, curyaamiintii, dhagoolayaashii, iyo kuwa aan hadli karin. Dhammaantoodna Ciise wuu daaweeyey. Sidoo kale dad badan oo jinniyo ku jiray ayaa Ciise loo keenay. Ciise wuxuu jinniyadii ku amray inay ka baxaan. Jinniyadii way ka baxeen iyagoo ku qaylinayo, adigu waxaa tahay wiilka Ilaah. Dadkii badnaa aad ayay u fajaceen oo Ilaah ayay ammaaneen. Kadib Ciise wuxuu doortay 12 nin oo ahaa xertiisa, wuxuuna ugu yeeray rasuullo. Isaga ayay la safri jireen, oo isaga ayay wax ka baran jireen.